السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي isku soo noqod wanaagsan soo dhawaada meeshaad naga daawanaysaan waa chef Braro maanta waxaan wadnaa yogor aan sokor lahayn sidee guriga ugu sameysanaysaa yogorkan caruurta u fiican yahay waxaan rajeynayaa inaan isla wada fahmi doono waa fruitka rabtaa isticmaali kartaa ani blueberry baan isticmaalayaa wax badanna kama isticmaalayo waxaan diidayaa inuu kalarkiisa ugu bato maadaama uu kalar badan leeyahay sidoo kale waxaan isticmaali doonaa yogorka aan sokorta lahayn yogurka aan sokorta lahayn baan isticmaalaynaa yogurkan wax sokor kuma jirto waa yogurka dhanaan waa turkish yogor wey midkaa haysatid waad ka samaysan kartaa adiga sidoo kale waxaan isticmaalaynaa fisbagarada ama double cream had bisa u taqaanid oo toortooyinka lagu sameeyo asagana wax yar baan ka isticmaalaynaa baalkan aad ayuu u macaan badan yahay sidoo kale ilmaha wuu fiican yahay caano yar baan isticmaalaynaa caanaha iskaga badinin sababtoo biyo kaa noqonaya hadhow malab baan isticmaalaynaa wax sokora haba yaraatee meeshaas kuma jirto caruurta aad buu ugu fiican yahay qofka weynna sidoo kale hadduu u baahan yahay subaxdii oo kale inaad siisid ilmaha ama aad koofalakiska ku cuntid waa wax fiican weeye sokor dhan ma lahan fruitka ujeedaan wax yar baan ka isticmaalay fruitkaa rabtaa isticmaali doontaa insha allah waana soo gelinaya midkaa haystad isticmaal adiga waana soo gelinayaa weliba kan mooskee buu aad ugu sii macaan yahay maangada aad buu ugu sii macaan yahay insha allah waan soo gelin doonaa haddii alla idmo waxaan sameynaynaa mashiinkaasaan soo qaadanay mashiinka haysaa ku shiidan kartaa kan doolshaha kan sharaabka lagu shiido kaasaa ii fudud aniga si fiican ugu shiid sida malabka iyo fruitka isku dhex galo ilmuhu iyo dadka waaweynba isku mid maaha dad baa mira hadday ku arkaan yogorka aan jeclayn oo tufo waad ka miiri kartaa haddaa rabtidna sidiisaad ku siin kartaa ani waxaan sameynayaa insha allah waa miirayaa canmir baan soo qaadanayaa kaasaan ku miiraynaa suus yogor sax ah oo softiga noogu noqdo si fiican markaan isku dhex shubo waxaa sii adkeynaya garadada haddii la shiido way adkaataa ma fahantay waa miiraynaa hadda blueberryga lafa yaryar buu leeyahay inkastoo aan soo shiiday haddana kuma dayn doono waa ku daysan kartaa dee dadka aad markaa u sameynaysid familigaaga ay cunayaan waa ujeedaa intaas yar baa kasoo baxday annaga yogor wuxuu noo noqday liishe ah oo kaaliska arag waa kaa dukaanka kasoo gadanaysay oo kale yogorkan wuxuu ku fiican yahay lambar 1 waa wax gurigaaga aad ku samaysatay aad ogtahay lambar 2 sokor dhan ma lahan markaad ilmaha siinaysid waxa sokorta ku yartaa dhaqaatiirta xataa way kala dardaarantaa inaan yogorka waxa u horeeya lagu weydiinayo ilmaha yogorka aad siisid muxuu yahay lagu leeyahay waa mid fiican haddaa ka faa'iidaysanaysid koobkaasaan ku shubanaynaa filinjeerkaan gashanaynaa annaga caagadaha ilmaha inta ku shubatid mvka wiigkuu ku haynayaa filinjeerka inta gashatid markaa wax badan aad samaysatid oo kale ani wax badan ma samaysanin waa ujeedaan tusaale idin tusaya ani xilli walbaan samaystaa iyo mar walba ma fahanteen filinjeerkaan gelinaynaa insha allah markuu noo soo qaboobo oo xoogaa noo soo adkaado weliba wax badan haddaa rabtid habeenii maalin wuu kuugu jiri karaa wuu sii adkaanayaa ma fahanteen anaga nusaac buu noogu jiray waa kaasaa waa kala soo baxnay waxaan sameynaynaa blueberryga isticmaalaynay baan qoryaha soo gelinay stakiinka ah ama qoryaha grillaha lagu sameeya hadba midkaa haysatid waxaan sameynaynaa saasaan u sarsaaranay alaabtii kaale iska arag caadi maaha macaankeedana ujeedaa siduu u adkaaday macaankeedana u dhamaystiraya macmacaankaas shalaan sameeyey youtube-kayga ku jira insha allah isagana wax sakoro ma lahan aad buu u macaan yahay haddaa halkaa nala soo gaartay waa ku mahadsan tahay videoga xaqiisa sii asxaabtaada nala sii sheergaray si ay uga faa'iidaystaan